kulankan oo isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Cadaado ayaa lagu taageerayay musharax madaxweyne Bashiir Xaaji Cali Jamaal musharaxa oo dalka dibadiisa ku maqan ayaa kamid ah musharaxiinta u taagan u tartamida xilka madaxtinimo ee dalka Sharmaaka Suulay oo kamid ah dadka soo qaban qaabiya xafladani ayaa yiri kadib markii musharaxa uu la tashaday dad badan oo aqoon-yahana oo ka maaragtay ololihiisa qayb ka ahaa waxa u soo baxday deegaano badan oo Soomaaliya kamid ah oo ku qabto doorasho dabcan aan iraahday soo dhaweyn oo ku qabto iyo taageero loo muujinayo deegaanada uu codsaday ama uu jeclaystana waxa kamid ah magaalada Cadaado markii aan weydiiyay Cadaado wuxuu ii sheegay inay tahay magaalo Soomaaliya oo dhaxaysa magaalo maaragtay dadkeedu ilbax yihiin magaalo dadka kale ka horeysa marka musharaxaasi hadda Mareykanka ku maqan yahay laakiin wuxuu kamid yahay musharaxiinta u taagan xilka qabashada Soomaaliya 2020-2021 qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb galay xafladani ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay musharaxani dhammaan waxaan intaas isku duuban maanta aan iskugu nimid meeshan inaan ku soo dhaweyno walaalkeen Bashiir Xaaji oo ah musharax u taagan xilka qabashada dawladda federaalka Soomaaliya aad baan u soo dhaweynaynaa nin kastoo Soomaaliya hankiis iyo waxaan ku soo dhaweynaynaa dadnimadiisa wixii uu helaana waa nasiibkiis inagu kullee walaana waxuhayn laakiin inaan soo dhaweynaan leenahay waan soo dhaweynaynaa Jeylaani Xasan Cusmaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Cadaado.